wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Cali Riyaaraac ayaa maanta kormeer ku soo sameeyay ceelka weyn ee magaalada Caynaba iyo sidoo kale goobta uu ka socdo dhismaha cusub ee loo yaqaaleelayo wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Saraar. wasiir dowlaha xanaanada xoolaha Cabdirashiid Maxamed Cali Riyaaraac waxa uu kormeerkiisa ugu korgelayay habsamida iyo habka uu socoto dhismaha wasaaradda xanaanada xooluhu, waxaana ugu horreynba uu kormeerkiisa ku gaadhay ceelka weyn ee qadiimiga ee magaalada Caynaba oo waqtigaasi ay ka cabiyeen xoolo tiro badan. waxaana halkaasi warbixin ka siiyay wasiir dowlaha mas'uuliyiinta wasaaradda biyaha ee gobolka Saraar. wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa sidoo kale gaadhay xarunta ay ka socoto dhismaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha loo dhisayo, waxaana halkaasi warbixin ka siiyay suduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Ibrahim Ahmed Saleebaan. dhawaan uu dhamaan doono oo inka uu gabagabo marayo inta jingati iyo hawla inta la qaar doono haray xaruntu waa xarunta aad u muhiimsan xaggan xaruntan waa xarunta ugu weyn ee gobolka noqonayso oo ceelkiina ka soo horjeeda oo inka isku xirmayaan xarunta iyo reemiga isku xirmayaan iyo xoolo dhaqatada dadka xoolo dhaqatada ah. marka inka iyaduna waa gabagabo inka waa dhawaan waa insha Allah waxaan furi doonaa xafladda dhexi doonta oo inka wax yar baa ka haray isla loo arkaan ismu soo socdo. ugu dambeyntiina wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdirashiid Maxamed Cali Riyaaraac ayaa shacabka kala duwan ee ku dhaqan gobolka Saraar ugu baaqay inay daryeeshaan xaruntan cusub ee loo dhisayo, sidoo kalena ay ka shaqeeyaan daryeelka ceelka weyn ee magaalada Caynaba oo dayactir ballaaran haatan lagu sameeyay. waxa muhiim ah waxaa dhismaheeda muhiimadu waxa weeyaan marka la dhiso la dhameeyo in la ilaaliyo sida loogu talagalay loogu shaqeeyo oo looga faa'iideysto wixii loogu talagalay. ceelka de arkiina waxa weeyaan mashiinadiisii in wax laga qabto u baahan yahay, taangiyada biyuhu in wax laga qabtaa way u baahan yihiin. inkastoo de magaaladii baa ciriiri gelisay oo hadda ay runtii u baahan tahay in qorshe kale loo eego, haddana bal inta qorshaha iyo hawsha la gaarayo kulliba waan ka hawlgelaynaa sidii haddii alla ka dhigo looga qaban lahaa mashiinadiisa iyo taangiyadiisa wax looga qaban lahaa ee dadka culays kan badan looga dulqaadi lahaa. maanta maaragtay gacan wax lagu waraabiyo ay runtii aad u culus tahay. idinkana waxaan kula dardaarmaynaa de xaruntii laydin dhisiyay gobolka Saraar waxaa ka hirgashay maanta saa aragtaan xaruntii xanaanada xoolaha, laakiin de inay ilaalisaan oo ku shaqaysaan oo waajibaadkii loogu talagalay ay u furnaato ayaa idinkana laydinka rabaa. oo waxa weeyaan de in ummadda loogu shaqeeyo oo magaranaysa ay noqoto xarun runtii shaqadeeda gudata sida aragtaan de imka ama de aynu arkayno waa dhammaad. Jaamac Boodacade TV-ga qaranka Soomaaliland Caynaba.